Jubaland TV xaruntiisa Muqdisho barnaamijkan gaarka ayaa waxaanu ku eegi doonaa macadka Samadoon ee cilmi baarista nabadda iyo istiraatiijiyadda ayaa soo qaban qaabiyay tababar soconaya muddo 10 maalmood ah waxaana ku saabsanaa xoojinta kaalinta ka qaybgalka dumarka arrimaha nabad dhisidda iyadoo loo marayo abaabulka haweenka gobolka Banaadir tababarkan ayaa loo qabtay gabdhaha aqoon-yahannada oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir munaasabadan xiritaanka ayaa lagu qabtay xarunta macadka Samadoon ee cilmi baarista nabadda iyo istiraatiijiyadda ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaano labada aqal ka kala socday arday iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka munaasabada xiritaanka ayaa waxa ka hadlay maamulka macadka Samadoon xildhibaano ardadii ka faa'iideystay tababarka iyo marti sharaf kale ka qaybgalka iyo xoojinta haweenka Soomaaliyeed ama gabdhaha Soomaaliyeed roolka ay ku yeelan karaan nabadeynta wadanka Soomaaliya waxa farxad ii ah inaan ka ahaa macallimiintii wax ka dhigaysay waxaan ogahay in macallimiin badan oo kala duwan iyo waxyaalo badan iyo xirfado badan aad soo barateen waxaan Ilaahay ka rajeynayaa Ilaahay inuu ku anfaco aanad u qaadataan si dhab ah waxaan ku soo celinayaa kelmadahayga ugu horeeyay markaan galaaska ku jiray oo ahaa haddii aadan bedelin adigu naftaada ma bedeli karid qof kale influence kuma yeelan karid role model uma noqon kartid waxaad ka qaban kartid ma laha qof kale ilaa adigu ataada u diyaar gareysid inaad nabadda qaybtaada aad adigu reebsid reebidugu maxay ku maamaahan waxay yiraahdaan nabad ma jirtaa waa haddii adiga laga helo macnaheedu muxuu yahay macnaheedu waxa waaye shakhsiga marka uu horeysa asaga waxa laga rabaa nabad in laga helo haddii asaga nabad laga helo waxa qasaba qofka uu la nool yahay ama dariska leeyahay ama kala qabiilka yihiin ama kala qaran yihiin ama daris yihiin wadamo darisa inuu asaguna nabad bixinayo qofku wixii aad kula dhaqantid buu kula dhaqmaya waxyaalihii aadka uga hadalnay waxa kamid aha waxa ugu wanaagsan oo binaadamku ku wada hadlaan inay tahay communication waxaan tusaale u soo qaatay oo aad xasuusataan macallimiintuna badan oo soo qaateen disbuudyada maalin walba ka dhaca dariskaaga iyo gurigaaga waxa ugu sahlan baabuurta isku dhacday iyo mootooyinka Soomaa wixii aad ugu su'aasha aad weydiisid jawaabteedu ku siinaya hadaa soo degatid adoo xanaaqsan oo ku qaylisid wuu inkirayaa inuu kugu dhacay wuuna kula dagaalamaya laakiin hadaa weydiisid asaga iyo dadka saaran inay nabad qabaan si tartiib aad u tiraahdeed maxaa idinku dhacay halkaas ay ka bilaabataa nabadu isagu wuxuu soo degayaa aqoonsan inuu ka khaldanaa ka qarqaadanaya kuguna jawaabaya si degan marka kulligay waxaan isku la dardaarmaynaa marka ugu horeysa wixii aad soo baratay iyo wixii horay aabi hooyo ku soo bareen iyo wixii iskuul ku soo baratay naftaada ku abaalgare naftaada ka bilow nabadda wadanka ka maqan waxay ka maqan tahay adiga waay qof kale waxba u qaban inta jeceshahay imagine adiga intayada tan waxaan leenahay qaraabo hooyo aabe walaal adeer abti ina adeer sodo seedi Soomaa adigu inta aan salaada ka jabin wixii aad u qaban lahayd kaliya u qab iyo naftaada kabacdi mid walba markuu inta ku dhufto waxay noqonaysaa multiply Soomaali oo dhan oo wax isku ah oo qaraabo ah wixii aan ku soo celcelinayno ugu weynaa waxay ahaayeen xiriirka haddii xiriirku burburo wax nabad oo imaanaysa ma laha aad baan ugu faraxsanahay gabar baa shalay lahayd anigu waa bilaabayo dariskan waxaan bilaabay inaan maalin walba salaamo markaas waxay u haystaan inay waalan tahay ilaa walba salaami jirin waa la soo maray midda waxba sitay laakiin waxaan rajeynayaa gabadhaas day meesha fadhido wajigeeda ima muuqdo inay bal ka keento inaad research ku noqoto oo aad dariskaas ka keentid inay ayaguna ku salaamaan haddaad xataa gurigaaga hortiisa xaaqdid waxaad helaysaa maalmaha hore lagu la yaabo inay ayaguna soo xaqaan oo dhexdiinu ay noqoto nadiif waxayna ka mid tahay nabadda daan jirin caafimaad nabad ma jirayso daan aysan jirin nadaafad nabad ma jirayso marka aad baan idin soo dhaweynayaa waa ku faraxsanahay maanta inuu idin gabagaboobayo waa ku faraxsanahay in aqoon-yahanadii iyo xildhibaanadii iyo dictatoresadii iyo kulligood nala joogaan badnaa uu soo jeediyay inaan qaadan doono kuna dhaqmi doono haatan waxaa u yeerayaa Cabdirasaaq Yuusuf oo ka hadlaya qaabka barnaamijka uu dhacay soo dhawo
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب معناه وحان ربا إنان mahad ballaaran u jeediyo ka soo qaybgalayaasha oo ahaa ka soo qaybgalayaal aad iyo aad macnaa heer level university ah si fiican ma arkin oo fikradahoodii aragtidoodii iyo macnaa wax alaala waxay ka qabeen si hagar la'aan ah barnaamijkan nagala soo qaybgalay waa runtii seminaaro badan iyo workshopyo badan baan ka qaybgalay waxaad moodaa midkii halkan ka dhacay inuu yahay kuwii ugu qiimaha badnaay uguna wax soo saarka badnaay waayo macnaheedu si hagar la'aan ah aqoon ku jirto dhalinyaranimo leh maskax fiican leh ayaad macnaheedu contribution ugu wada samayseen howlihii aan halkan ku weynay markoowaad waa idin mahadinaya 100% midda xigto aniga hadal badan uma soo istaagin halkan samadoon ilaa iyo 3 bilood oo la soo dhaafay wuxuu qabtay 4 markino workshop oo kala duwan waxaan rajaynaynaa 2 bilood oo soo socdana inaan qabanno 3 kale oo waliba aad u weyn oo aan jecelnahay inaad nagala soo qayb gashiin idinka dhamaantiin iyo howlo kale oo aan furi doono oo ah volunteer oo lagu horumarinayo dhalinyarada marka taasna waxaan rajaynayaa inaad qaatiin emailada telefoonada uu leeyahay macnaheedu samadoon si aad howlahaas uga qayb qaadatiin dad la iloobi kara ma tihiin waayo marka aan u soo noqdo nuxurkii iyo macnaheedu waxaan soo koobi kara ma aha barnaamijkii iyo intii maalmahan uu socday wax badan baad ka hadasheen intaas waa soo summarize gareynaynay report weyn oo ballaaran baan ka soo saari doonaa barnaamijyo kale tan wuu dhaliyay macnaheedu go'aamadiina iyo hadalkiina waxay nagu abuureen inay jiri karaan barnaamijyo kale oo aad muhiim u ah oo aan qaban doono ilaahay hadduu yiraahdo marka aan soo koobo marka haatan macnaheedu nuxurkii iyo macnaheedu hadallada aad tiraadeen oo group discussionskiina ka soo baxay waxaa ka mid ahaa dhinaca nabadda markii la yiraahdo 1 2 3 4 5 6 7 8 way ka badnaayeen dhowr iyo 20 markin oo talaad keenteen laakiin se inta ugu muhiimsaneed oo aan isdhaho macnaheedu la wadaag dadkii ayaan maanta rabaa inaan idin la wadaago waxaad tiraahdeen dhammaan in haweenka Soomaaliyeed ay ka qayb qaataan howlaha nabadeynta dalka waa go'aan aad u fiican buu ahaa waana soo dhaweynaynaa waana qoraynaa waxaad sheegteen macnaheedu gabar baa waxay tiri macnaheedu hadalkeeda in la iloobo maaha waan soo xusnay halkaan aan ku soo xusnay waxay tiri waayidii dagaalka sokeeye uu jiray gabdhaha dahabkooda ayay u iibin jireen dagaalka sokeeye laakiin maanta gabdhaha Soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin dahabkooda inay u iibiyaan nabadda wadanka marka tul iloobi kara maaha taas qodobada waxaa ka mid ahaa macnaheedu hooyada inay tahay aasaaska nabadda aasaaska xaafadda ilaa iyo heer qaran lagu gaari karo guriga la ka bilaaban karto nabadda guriga ay ka bilaawdo ilaa iyo la gaarsiyo heerka ugu dambeeyo waxaa kaloo ka mid ah qodobadii aad markino inay ka soo baxay group discussionkiina aqoon waxbarasho in loo baahan yahay haweenka in la siiyo la zaa'idiyo si ay barbaarinta uga soo bilaabaan iyo waxbarashada guriga iyadana waa muhiim waxaa kale oo ka mid ahaa muhiimadda ay leedahay wacyigelin buuxda in loo sameeyo dumarka Soomaaliyeed guud ahaan waa iyadana waa qornay waana tixgelinaynaa macnaheedu waana fidinaynaa hadalkaas ilaahay hadduu yiraahdo waxaa kaloo ka mid ah si buuxda in loola shaqeeyo hay'adaha amniga ee dalka waa go'aamadaas soo saarteen waana muhiim because haddii la wada shaqeeyo horumar lagu gaari karaa nabaddan lagu dhalin karaa marka iyadana taasna waa mid ma arkin oo xusid mudan oo halkaan aan ku soo qaadanay sooma koobi karo dhinaca markaan u noqdo dib u heshiisiinta oo iyadana aan ka soo qaatay 3 qodob waxaad tiraadeen in haweenka ay ka qayb qaataan door lixaad leh dib u heshiisiinta waxaad sheegteen macnaheedu dumarka markan oo inay door lixaad ka qaataan dhammaan
howlaha guud ee ka socda dib u heshiisiinta dalka ka qayb qaataan dib u heshiisiinta siyaasadeed iyo midda ma arkin oo bulshada ma arkin oo dhexdeeda ku saabsan labadaba marka taas waa qodob isna ma arkin oo xusid mudan oo aan ku soo qaadanay maanta ma arkin oo meeshaan inaan ka sheegno diyaar aan u lanahay macnay dadkan aan la wadaagno gelinana ma arkin oo barnaamijyada waaweyn oo wadanka ma arkin oo ka soo muuqan doono website-yadiisa sidoo kale waxaad sheegteen haweenka inay ka qaataan door muuqaaldo oo la qaban karo howlaha wada shaqeynta dalka ku saabsan iyo xiriirinta hay-adaha dowladda waxaa kale oo sheegteen in ay laga maarmaan tahay cadaalad iyo dhexdhexaadnimo si loo helo dib u heshiisiin waarto iyadana waa sax weeye iyo waxaa ugu dambeyn aad tirahdeen sidaa lamida sidii nabadda aan ku sheegnay in loo baahan yahay wacyigelin buuxda oo loo sameeyo dumarka Soomaaliyeed dhinaca dib u heshiisiinta marka way ka badan yihiin waxaan ma arkin oo idinka aruursanay maskaxdiina iyo macnaheedu wadashiina ka soo baxay waxaan waa waxa idin heeno waan soo qoraynaa waana baafin doonaa waana arki doontiin insha Allah taala assalaamu alaykum qodobadaas aan arki doono waxqabadkiisana aan arki doono insha Allah haatan waxa uu yeeray madaxa macallimiinta Dr. Aisha Umar soo dhawow soo gashinaan hal maalin idin la wadaago ra'yadayda iyo wixii aan ka qabo oo idinkana wax ka faa'iideystaan annaa wax ka faa'iideysto wala kala faa'iideystay ilaah baana mahad iska leh oo noo qadaray inay dhacdo arrintan ay ku dhacdo waqtigan ay ku dhacdo xaruntan mahadaas ka sokow macadka Samadoon isagana waa mahadsan yahay oo isku xilqaamay inuu hawshan qabto maanta waxaa dhiri waa guntii gabagabeyntii 6 maalmood wixii soo socday wax markii la gabagabeynayana waxa uu asal ah in la isla dardaarmo waxa marka hore naftayda iyo tiina u dardaarmaya in Ilaahay laga cabsado oo wax kasta oo la sameeyo lagu saleeyo Ilaahay cabsidiisa wixii aan lagu saleeyin Ilaahay cabsidiisa oo lagu saleeyo cabsi wax kale ama istustisid wax kale iyo dad kale iyo kulli mira magalaan marka in la Ilaahay looga cabsado oo Ilaahay looga dambeeyo oo in ay waxaan loo sameeyay in cibaado tahay taas in dardaarmaana sidoo kale soo dardaarmo tan labaad waxaan rabaa in aad la isaga ilaaliyo inay nagu dhacdo waxaan sameeyeen dadka inaan farno wixii la idin farinta qaadaan meelaha uga sheekaysaan inaan sameeyno oo ku dhaqaaqin Ilaahay subhanahu wa ta'ala dambida dunuubta wuxuu ku sheegay qaarkood inay kabaa'ir dunuub yihiin lima taquluna ma la taf'alun waxa ku jirta kabara maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun waxa sameeyaysid la ku hadal hadaan sameeynin ha ku hadalna nu sheegin dadka because waxa noqonay wax ka mid noqonay dadkaas waxaan kaloo dardaarmayaa iyadoo in la iska mar walba lagu socdo dalkan waxa ka burburay waa badan yihiin aad u baaxad weyn waxa daliil u ah idinka dhamaantiin waxa dhalteen intii u burburay dal intaas burbursanay soo kabashadiisa ma dhawa marka waa inaad bilow u noqotaan oo bilow fiican u noqotaan wuxuu markuu hadlayo macallin Cabdirasaaq wuxuu yiri in gabadha salaam bilowday waa la yaabaa oo waxa leeyahay maxay dadku u salaamaysaa waa shay cajiiba ummad muslim oo muslimnimadeedana boqolkiiba boqol tahay oo wada sunni oo haddana la yaabaa wixii islaamku u faray rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri midii sheega kalmad hada sameeysan as jeclaanaysaan ifshi salaanta badiya assalaamu calaykum adiga hadaa radin weysid malaa'igta iyo radinayso hadaa radin weysid malaa'igta kula yaabayso waa waxa loo baahan yahay ummad inay isku jeclaato bilow ah marka inaan la yaabno soo inaan meeshan ku dhacno meel dheer inay tahay macada ma dhawa hawsha aad u badan tahay 6 maalmood waa yar tahay wixii meeshan kaaga soo baxay waxa ku kabataa muxuu Ilaahay ka yiri maxay rasuushiisa ka yiraahdeen iyo ummadihi naga horeeyay oo xataa aadanahan aan islaamka ahayn ay ku jiraan oo sideen naam burburay maxay ku xalistaan Ilaahay gaalo badan oo la xaliyo arrimahooda justiifka joog marka akhriskana ogaada waa muhiim kulligiin levelkiina ay weydiiyeen maalintii isku xaatihiin level akhriya luqadda ku akhrin kartiin oo kaga boqon kartiin kaga bogto waa helaysiina اقرأ ومهم وحكستو بلاد رسولك عليه الصلاة والسلام مركو بلابه وحي محل لوغا بلابه توكا مالدين صون مالدين استاق مالدين فرديس مالدين آخري الليل قفكين وحقري وح آخري
arag wixii horteen burburisay wax yeeleen kuwa dhawaan burburay gadaasheen hagaagay kuwa horteen burburay hagaagay kuwa nala burburay hagaagay intee anaga marka wax ka qaldan intaas markay iswaafaqdo waxaan maleynaa waa isla helaynaa inaan wadadii toosnayd gabagabadii marka duca ayadana baryo ilaahay allahaas adoo samaynayo haddii ducadaada ilaa fi dalaal ay noqoto baraka male intaas markaa samaysid oo usoo xirxiratid adkaartana ku darsoo ducaystaan shaqadina howlgala waxaa aaminayaa 100% waa ka gungaaraysaan waxaa barateen waa dhaqangelinaysaan faham adiga ku dhaqan dadka u gudbi markaas 6 maalmoodna way yartahay meeshaas ku joogsan aniga awaas waxaan hadda weydiistay in kulligii contactskiina la haayo oo ah email iyo telephone ba inaan inta lagu kala harin aan rabaa haba yaraatee gabadhii salaanta bilowday inay sii wado qoliyaha aan maalin weyd la dardaarmay marka 10ka bixinayo oo ahaa public health caafimaadka ila aniga shaqadeedii ayaga laftirkooda inay dhinacooda ka wadaan bulshada Soomaaliyeed oo ayada dhan kooban oo ayada dhan ehelkii qaraabadii ah gacalada iyo wada ah dariska iyo gidiga soo taqaan macquul ma aha inay naga farabaxsato macquulna ma aha inaan soo qaban weyno waa la soo qaban karaa waa bashar meel aadanaha kama duwana dhamaanteed waa iswada leedahay meedinka hareen idinkana naga harina contactskiina kala qaadanayna haba noo yaraado waqtiga haba iska cariir ahaade inta yaro isxasuusin karaan isxasuusinayna deegaan ahaan xaafad ahaan gobol ahaan degmo ahaan siday noqotaba waxay noqonaysaa markaas wax qabad aruuray oo batay oo bulshada wax ka bedelay bulshada aan burburtay haweenkan iyo xilka masaarna laakiin qaybtay ka leeyihiin waay qayb lixaad waan idin sheegay 3 meelood labo umada female waay anaga kaliya ma adduunka dhan kala bar ma 50% ma waa 3 meelood labo female caalamku hal male marka waajibka anaga xoog noo sii saarayay labo waxa waajibku noo sii saaray waxa la yiraahdaa burburka iyo conflict iyo farisku taagtaaga iyo gacan isku qaadinta rag uu ka bilowda laakiin xaliskiisa kaliis maxalliyo anagoo dhan soo wada galeen kullukum raa'in wa kullukum mas'uul an ra'iyati inta soo ku gabagabeynaya waan mahadsantiin masab kasta aad ku fadhisiinba hadii aan leed xildhibaan hadii aan leed professor hadii aan ardayda dhalinyarada iyo dhamaantiin isaawada dhantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u maleynayaa maxay raahdaa magaca samadoon aan waxaan la siistaba ahaynba samadoon waa nabadaada raadinaysaa marka waxaan u maleynayaa oo kale 5 biro ugu dambeysay inaa wax badan aad ka faa'iideen workshop badan way jiraan meel kasta way ka socdaan laakiin adiga waxa laga rabaa in portfolio aad samaysatid oo aruursatid kuna dhaqantid waxa la yiraahdaa dhaqanka conflict meel kasta oo ka iman kara dhibaatada meel kasta ka jirta hadii aan lahayd maxay raada ganacsi hadii aan lahayd caafimaad hadii aan lahayd sadexgal wax kasta waa conflict baahsan ayaa wadanka ka jira marka samadoon waxay idin soo bandhigtay sidaad maartay ugu macaamil lahaydeen dadkii sidaad dadku dhaxgali lahaydeen sidaad maartay maxana ugu dhaqmi lahaydeen waa run habeenka waxa la yiraahdaa gabar wax barato waa bulsho wax barato waan wax jira waay runtii inaad maaragta beebiga markuu yaryahay ilaa markuu ka weynaado garabka ayaa laga haayaa oo ilaa oo ka aqal gala xataa markuu aqal gala hataa qofka maaragta ilmada dhalaha hataa gurigiisa waxa laga yaabaa hooyada wiiladu inay sii riixdaa laga yaabaa marka intiinan hadda gabdho yaraatiin oo hadda soo baxay oo waxbarashada maaragta maxay yiraahdaa xoog saare kulligeeda level waxa wada tiino jaamacadeeda wada tihiin wax badan baa idin soo kordhay haddana more experience aba leedihiinba oo maaragta wadanka waxa ka socday iyo waxa ka dhacay marka wixii ka dhacay waad aragteen see looga badbaadi karaa waa see looga socon karaa hadda gabadha saakid ay sheegtay salaanta maaragta ku bilaawday beled ee ku bilaawday xaafadeeda waa run waa waxaan looga baran way cusubtahay marka hadii la yiraahdo way waalanta of course waa la leeyahay because salaana lagaaga barnaa bilaawda adiga marka wax kasta waxa waay maaragta maxay raahdaa sida adiga aad u dhaqaajisid waay waagi hore waxa jirta af Soomaaliga beebel lagu keenin waxa lagu keenay in gambar geedaha hoostiisa la fariisto oo gambar maaragta wax lagu bar Soomaalida hadduu rag yahay iyo haddii naag tahaba gabadha ayadoo gurigeeda joogto suuqa ilmee leedahay geedka hoostiisa gambarkeeda soo qaadanaysa
hadda geedka ma soo celi karnaa geedka inaan soo celino waaye geed nabadeen ah inaan soo celino waaye marka geed nabadeenta maxaa ku jiri karo waxbarasho ku jirayso caafimaad ku jiraayo dhaqaale ku jiraayo wax kasta nabadda waa geedka weyn oo quraca ee waaye quracana wax kasta ku hoos jiro marka waxaan rajeynayaa Samadoon inay wax badan aad ka faa'iideysateen ayagana way ku mahadsan yihiin runtii magacana wuxuu yahay magacaan la siisan Samadoon ah marka waxaan idin rajeynayaa guul aan idin rajeynayaa inaan maaragtaa hore u sii dhaqaaqdaan xataa laba gabdho xaafadiina taa wax bartaan taa wax weyn waaye insha Allah warkeedii kuma sii badinaayo dad badan aad daahsan waxaan leeyahay ilaahay idin la garab galo laakiin informationka soo wada aruursada maaragtaa portfolio u sameeysta maskaxdiina ku shuba kuna dhaqma haduu ilaahay raala ka noqdo macadka waxaan leeyahay inaa u sii badisiin dadka workshop-yada la sii badiyo in la sii badiyo maaragta galaasyada la siinaayo hadda habeen kaliya waaye hatta rag in lagu soo daro maaragta gabdhaha wiilasha yarka ah insha Allah waxaan uga fadhinaa inaan aragno more workshops aan uga fadhinaa macadka gudoomiye Awees iyo Abdirasaaq kulligood waxaan uga fadhinaa insha Allah waan isla wada joognaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asbuuc noo soo socday waxa aad iyo aad mahad gooni ah u leh bahda Samadoon ayagana si haagan la'aan ah noogu suurtageliyay inaan ka qayb qaadano barnaamijka wuxuu ka hadlayay nabadda dhisidda nabadda iyo haweenka siday nabadda uga qayb qaadan lahaayeen ma rabo inaan hadalku ku sii dheeraado waxaan rabaa inaan mawduuca sii dhex galo mawduuca aan si gooni loo baro asbuucan oo markaa meeshaan imaanayna qaarkeed wax badan oo soo koogay waxa waaye dhisidda nabadda iyo doorka haweenka nabadda ay ku leeyihiin ka socoto oo ka weynaatid oo bari wax ka qabsatid hamigeeda macnaha fusionkeeda waxa weeye inaa heerkaas gaartid haddana waxay ku baray hadal si aad dadka ula hadashid oo waxaad jeceshaan u sheegtid waxaad necabtaan u sheegtid barina hadalkaaga aad dadka wax ugu qabatid marka muhiimadda hooyadu intaas kaliya ma ahan laakiin meel yar ay ka tusa macnaha qof walba uu dareemi karaa dumarku marka bulshada waxay ku leeyihiin u imaana nabaddu ayadana muhiimad gaar ah leedahay waxaan dhahnaa labada shay oo bulshada muhiim ah nabadda waxaan ku tilmaamaa ayadana tusaale yar ay ka tusaya meel yar hadda waxaan ku jirnaa dhismo Soomaaliya dhismo qurux badan aan ku jirnaa dhismahaas waxa ku hoos jira waxa waaye alaab material iyo dad dhismahan hadda wax dhibaato kuma qabno oo qof walba hawshiisa u socoto uu faraxsan yahay uu hadlayaa wuxuu rabo sameeyna ka waran hadduu dhismihii dumo inta uu ku dumay ama dhaawacantay ama dhimato ma inta kale waxay sameynayaan waa cararaya Soomaa xataa lama mikrofoonkan iyo miiskan iyo alaabtan dhan waa laga cararaya nabaddu marka waa gurigan dhisan oo aan wada harsanayn anaga dhan markay burburto marka waxaa imaanaya kii dhintay iyo kii dhaawacma moogi inta kale inay naftooda la cararaan oo mid walba uu raadiyo meesha uu ku baxsan lahaa nabaddaas ayada ah marka anaga waxaa haysanaa khibrad kama hadlayno dagaal waxaan uga hadlayno dagaalka waxaa haysanaa khibrad nagu filan khibradda dagaalkeena waxay gaaraysaa muddo badan oo qof kastoo anaga naga mida dagaal uu yaqaanaa waxa marka dhismaha aan sheegno inuu dumo waxa keenaya sababta keenaysa waxa waa dagaal kaas asaga ah ayaan waxaan rabnaa inaan ka hortagno oo mar dambe guriga aan ku hoos jirno uusan nagu kordumin waxaan ka hadlaynaa marka ka haween ahaan ka hooyo ahaan ka bulsho ahaan muhiim maadaama haweenka markii hooyo ay yihiin ka soo tag ee bulshada dhakhtarada say sheegtay laba meel waa dumar marka waxaad dareemaysaa saameynta xoogan ee aan bulshada ku dhex leenahay sababta lambarkaas badan xataa waa xoog Soomaa waa baawarkaas isaga ah aan waxaan rabnaa inaan wax ku bedelno waxaana aad ugu sii faraxsanahay inaan haween ahaan inta nala soo casuumo anagoo si qaas ah nala yiraahdo bal aan wada hadalno oo soo daaya aragtiyadiina markii waxna la bare kadib nala yiri soo daaya waxa qabtiin waa motivation fiican oo annagana nagu qasbay inaan wax badan oo maskaxdeena ku jirna aan soo saarno qof walba waxyaabo ku fakaro wax ku bedelay inaan soo bandhigno waxaan soo bandhigno waxyaabo kala duwan qaarkood ay useful ahaayeen qaarkood dhexdhexaad kulay wax walba oo aan soo saarno waxay ahaayeen wax naga yimid
oo aan ku soo saarnay inaan wax ku bedelno. waxaan bahda Samadoon Institute leeyahay waxaa sameyseen dadaal xoog badan runtii aad u fara badan oo macallimiin kala duwan oo khibrad ku filan leh cilmigeena barayeen inayna siiyeen cilmigaas asaga ah iyo xoog iyo juhdigaan ugu bixiseen. waxaan idin leeyahay wuxuu leeyahay rajo fiican in laga miro dhaliyo sababtoo waxaa wax barteen gabdho kaliya ma waxaa barteen gabdho aqoon-yahano ah oo wax bartay maskaxdooda nadiif yahay age-kooda uu yar yahay oo generation fiican oo raba inay nolol fiican helaan rajo ah ku jirta ayaa wax barteen. annaga marka waxaa naga go-an ka gabdho ahaan in jiilka cusub annaga aan soo saareyno ay noqdaan kuwo dhan kasta ka diyaarsan. tusaale annaga waxaan bedeli karnaa wax badan. waxaan ku bedeli karnaa kow meel yar idinka tusaaya hooyada waagi horeeta markii hooyooyinka aysan waxba baran dagaalada Soomaaliya cunuga yarka waxaa lagu soo bilaabaa kow dagaalka waa lagu soo aabin jiraba sababta loogu soo aabinayo mataqaaniin cunuga markuu 8 jir ya dugsi ama iskool la geeyna Soomaa dugsiga iskoolka markii la geeyo waxa ku imaanaya cunugaaga sometimes ooynayo oo cunug kala soo dilay markuu ku yimaado hooyada waxay leedahay ayadoo waxba wareysan oo si fiican xataa polite way ula hadlayna waxay leedahay bariyaa ku soo dilay markaas uu leeyahay cunugaa soo dilay war fulay baa taa doqon baa tahay maxaa wax u soo dili weysa adiga markii lagu soo dilay maxaa qabanaysa cunugii marka automatically waxa ku beermaya dad ah inuu asaga wax soo dilo waxaa tagays marka cunug ka awood badan xataa inuu soo dilaa laga yaabaa marka intuu tago wuxuu soo daqraa ama wuxuu soo dilaa waxaa imaanaya marka familkii cunugii waa laga soo daqraa duulaan u imaanaya si ay familkii kale ugu soo duulaan maxaa abuurtay marka adiga waxaa abuurtay colaad Soomaa waa meesha ugu yar colaad ka abuuri kartid ka waran hooyaa tahay cunugaaga markuu ku yimaado waxyaabaha la soo baro horta aad bay u farbadnaayeen waxaa ka mid ahaa qaabka wax lagu xalliyo khilaaf markuu yimaado waxaa jira skills oo lagu xalliyo khilaafkaas xifradaha jirana la soo baro Soomaa in wax lagu xalliyo khibradaas waxaa ka mid ahaa koow cunuga markuu ku yimaado isagoo inaa communication samaysid oo cunuga la hadasho horta marka hore aad tiraahdo maxaa qaldan marka cunuga markaa la hadashid waxaa leedahay wuxuu kuu sheegayaa meeshii wax ka jiraan Soomaa problemkii waxaa sameynaya marka waxaa aaday familkii cunuga soo dilaa u tagay cunuga la kulmay waxaa leedahay maxaa qaldan marka kana waa dhageysanay laga yaabay kaagi oo inuu qaldan yahay wada soo dil Soomaa waxaa leedahay marka discussion afurey staabiskina la baro waa Soomaa staabiskina la baro adoo ku dabaqayo macna automatically bulshada waxaa sameynaya discussion waa la hadlay ilmihi waxa u fureysaa wada hadal waxaa leedahay iska soo horjeed midkaan problemkiisa sheego adi maxaa lagaaga baahan yahay waalid ahaan waxaa lagaaga baahan yahay justice waxaa lagaaga baahan yahay daacad inaad ahaatid kaagina aada ka helin kii kalena aada ka helin oo si siman ilmi aa ugu gashootid waxaa sameynaya marka kii qaldana waxaa leedahay adi waa lagaa qaldan yahay adna waa qaldan tahay wixii aan loo laaban waxaa tahay markaas mediator mediation sameynaya dhexdhexaadin Soomaa waxaa sameynaya dhexdhexaadin ilmihii marka waxaa laga yaabaa way farxayaan cunugii waxaa ilmaha waa dadka ugu cugdada yar waa Soomaa ilaa maskaxdooda waa nadiif waxay sameynayaan marka inay heshiiyaan ay bilaabayaan cunugii waxaa leedahay negotiation bilaaba labadiina gacanta isgeliya hab isiisiya heshiiya meeshii maxaa ka imaanaya waxaa ka imaanaya diis ilmihii waxaa laga yaabaa dib dambe xataa inay isku dagaaleen ilmihii ayaga ahaa maalintaas ficilkaas ku samaysay waxaa laga yaabaa xataa waxa ay furan kaliya waxay tahay inaan u mahad celiyo in la intii gacan ka geysatay barnaamijkan inuu taabagalo oo heerka maanta aanu taagano gabagabada inuu soo gaaro runtii gacan ka geysatay la'aantoodna ay suuragal ma ahayn in barnaamijkan soo gaaro sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo macallimiintii runtii waqtigooda qaaliga bixiyay ardaydii waqtigooda qaaliga bixiyay ee barnaamijkan ka faa'iideystay iyo in alaalintii dhiirigelin noo samaysay runtii nagu daabagelisay Samadoon mar walba waxay u taagan tahay in wargalama noocaan ay qabato waxaan rajaynaynaa sanadka soo socda inuu noqdo sanad aan laba laabno jidaalkeeni barnaamijyaan qaba jirnana aan silba jibaarno haddaan ugu yaraana labada bilood maba inaan barnaamij noocaan aan qaban doono oo aan uga faa'iideynayno bulshada Soomaaliyeed hadda jeerna aan ka hadli doono topic aan isleenahay waa waxtar u yahay bulshada Soomaaliyeed wuxuu nala xiriiraa hadafkii ujeedada macadku leeyahay in la gaaro bulsho xasiloon dal nabada oo horumar gaaray intaas kadib waxaan rabaa inaan horta marka koobaad ku soo dhaweeyo microphone-ka xildhibaan Saleebaan waa xubin guddiga arrimaha dibadda ka tirsan kadibna hadalka waxaa qaadan doona xildhibaanad Xaawo oo barnaamijka noo soo xiri doono waxaan rajaynayaa inaan ku qaadano xilligii jaahiliyadii taariikhdoodii la fiiriyo
gabadhu waxay ku jirtay nabadda iyo colaadaba waxbay ka geli jirtay dadka ciidamada duulaya guubaabiya oo maaragtay dabagala dumar bay ahaayeen ragguna waxay ka xishoon jireen dagaalka inay kasoo noqdaan maadaama dumarkii ay gubaabinayaan oo daba socdaan sidaasi la-eg markii xilligii islaamku yimid gabdhuhu dagaaladii muslimiintu ay isku difaacayeen qeybta ugu weyn bay ahaayeen cuntaday karin jireen dhaawacay daaweyn jireen maaragtay caruurtii bay ka reebi jireen wax haba yaraatee laga maarmi karo gabadha dowrkeedu ama gabadha muslimadda ahi ama wax la inkari karo ma aha qofka marka la yiraahdo ilmaha ama markuu soo barbaarayo waxaa saameeya 3 madaraso madarasada ugu horeysa waa madarasada hooyada hooyadu waa waxa ugu horeysa oo ilmaha itijaahiisa iyo fakarkiisa iyo akhlaaqdiisa saldhigga u ah kabacdi markuu hooyada ka soo gudbo wuxuu imaanayaa shaaricu wuxuu fiirinayaa marka waxa ka jira iyaduna saameyn bay ku leedahay akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa shaarica markuu ka gudbo meediyaha ayaa isaguna wuxuu yahay factor kale oo qofka design gareeya siduu u fakarayo iyo qaabka uu dhaqmayo haddaba waxaad aragtaa meesha saldhigga ugu weyn oo maaragtay asalka u ah qofka suluugiisa iyo meesha uu u socdo ama ka gungaaridiisa mustaqbalka inay tahay hooyada marka la yiraahdo sideebay wax uga qaban kartaa nabad waad fahmi kartaa ilmaha ay soo saarayso bay ku xiran tahay in badan waxaa la prefer gareeyaa caruurta wixii ilaa dugsi sare ah macallimiintooda badanaa inay noqdaan dumar sababtoo ah waa ka naxariis badan yihiin ragga waa uga jajaban yihiin waa ka fahmi og yihiin dhalinyarada ama maaragtay caruurta way ka fahmi og yihiin laakiin ninku waa iska adag yahay oo wax badan inuusan ka dhaadhicin karin bay u badan tahay marka haddii gabdhuhu ama dumarku hadda la eego waxa ay nabadda ka qaban karaan waa dowr aad iyo aad u muhiima waxay ka qaban karaan sida aan sheegnayba wacyigelinta ka qayb qaadan karaan waxay ka qayb qaadan karaan maaragtay inay sameeyaan oo ay sameeyaan ururo nabadda ka shaqeeya ay dadka wacyigeliyaan waxaa in badan la aaminsan yahay inay ka dambiyar yihiin ama ay ka dhibyar yihiin marka la eego xagga dhibaatada iyo nabadgelyo darrada dumarku way ka dhibyar yihiin ragga sidaa daraaddeed bulshadu in badan dumarka ixtiraam bay u haysaa waxaa laga yaabaa in badan idinku waxaad tidhaahdaan dadku inay qaataan laakiin raggu waxay u sheegayaan aysan qaadan haddaba sidaa daraaddeed waxaad u baahan tihiin inaad idinkuna dowrkiina garataan aad fiirisaan makaanada islaamku idin dejiyey dowrka aad ku leedihiin bulshada idinkuna aad ka faa'iidaystaan markaa iyada ah laakiin haddii sida meediyaha westernka ay sheegayso aad furtaan ama ay maaragtay idin jiidato waxaad luminaysaan sharaftiina iyo karaamadiina iyo dowrkiina aad ku leedihiin ka muslim ahaan bulshada iyo society-ga dhexdiisa waxaan marka idinkula dardaarmayaa idinkaa marka horeba ilaahay horta isagaa ummadda abuuray isagaa yaqaana qof walba wuxuu ku hagaagsan yahay sida idiin sharfay si ka badan oo aad cid kale ka helaysaana ma jiro marka ka shaqeeya nabadda dowrkiinuna waa dowr muuqda waan idinku dhiirigelinaynaa waan idinkula shaqaynaynaa aad iyo aad baad mahadsantihiin intan oo gabdho ah oo dhallinyaro ah oo heer jaamacadeed ah oo u diyaarsan in ay qayb ka qaataan buuxiyaan kaalintooda mugga leh ee u bannaanaatay ee nabadda aada ugu faraxsan waxaan aada u soo dhaweynayaa macadka Samadoon ee yacnii maanta diiradda saaray waxaan aada ugu faraxsanahay mowduucyadan aad ka doodeen oo muddada aad soo wadeen ee dib u heshiisiinta siyaasadeed muxuu ahaa nabadda iyo dhisidda iyadoo maaragta loo marayo abaabulka haweenka xaqiiqdii Soomaaliya waa la dagaal sokeeyaa galay ma jirto reer maanta wax uu sheegan karo oo la leeyahay reer hebel maxaa kaaga maqan oo lagaaga soo qaadaa oo maaragtay aad leedahay waxaas iga haystaan hal iga soo qaado aad leedahay oo jirto ma jirto
reer macnaha wax ka maqan yihiin oo waxa hal iiga keeno ma jirto marka waxa waaye wax aan la garanaynin baa la isku laayay sidii marka gacanta way ka dhacday nabadu muddo dheer bayna qaadataa maaragtay in dib loo soo dhiso nabadda marka way farxad gelinaysaa waan ku faraxsanahay inuu macadku tallaabo u qaaday arintaana meelo badan bay ka socotaa runtii goobo badan baa looga arimanaya oo la leeyahay dhismaha nabadda iyo doorka dumarka haweenku nabadda guryaha laga soo bilaabaa leeyahay nin kasta qorigiisa iyo bastooladiisa iyo midadiisa wuxuu dhigtaa gurigiisa u dhigtaa wuxuu ka soo agtoosaa gabadhaas ka soo agtoosaa amba hooyaha u ahaato amba xaaskiisa ha ahaato amba walaashiisa ha ahaato annagaa hubka hayna inqilaab inaan ku sameeyno horta hubka kala wareegno mar waxa kale oo maaragtay xaqiiqdii aan nahay maanta xaaladda aan jirto waxa waay ninkii silsilada intuu lugta isaga xiray silsilada hadaan lugteeda hadaan xarig dheer ku xiro xariga afkiisa aan bamba ku xiro gaanjada ka gooyo oo tuuro xageebay ku dhacaysaa agteeday ku dhacaysaa maanta ninka muxuu ahaa xabadda ridayahay wuxuu ku ridayaa waa qoyskiisii waay Soomaali waa hal qoys waay hal qoys aan nahay marka gurigiisii buu ku ridayaa bambada aan ridid lugtaada ku xiran waxay macno la tahay hooyada iyo walaalka iyo hareerahaaga inaad ku ridid marka muhiim waxa ah in dhamaanteen loo wada istaago oo nabadaasaytii laga wada shaqeeyo door muhiim la qaato kaalinta dumarku way banaan tahay runtiina sida hadda caadiyan la sheego boqolkiiba 65 ayaa dumarku maraya Soomaaliya adduunka dhan ha ahaato laakiin hadda Soomaaliya waa ogtiin xaafadaha tirakoobyada la sameeyo waxyaabaha la ogahay waxa badan dumarka badan maadaama aanu ka badanahay maanta aqoontiina waa soo barbar istaagnay oo hadda waad aragtaan klaasyada awal meeshay gabdhuhu ku yaraan jirna gabdhaha iyo wiilasha hadda way isku soo dhow yihiin inta wax baratay marka waan rajaynayaa in aad sida aad ugu kalsoonaateen amba diyaarka ugu tihiin inaad dalka xasilisaan oo aad nabadda ka qayb qaadataan ilaahayna inuu idin sakhiro anakan waa inii duceynaynaa farxad bay noo tahay inaa biri kuwiina bedeli lahaa hortayada aan ka aragno farxad bay noo tahay kuwii maaragtay muxuu ahaa nabadda u istaagi lahaa oo dareensan mushkiladeeda weliba gabdhihiina iyo dhalinyarada wiilal iyo gabdhaba ilmaha dalka gudihiisa wax ku bartay waxay la socdaan wax badan oo culays oo dalka ka jira wax badan oo macna la'aan oo maalin walba walaalkeena maaragtay dhimanaya aan banaafoomaya bay la socdaan marka insha Allah taala ilaahay idinku anfaco mawduucyadii quruxda badnaa halka ka qaateen anu waan la socday oo mar walba waxaan waa la ii soo dirayay barnaamijka meeshuu marayo aad baa la soo way ahayd inaan ka mid noqdo fududeeyaasha maaragtay ka soo qayb qaata laakiin xogaa waxba isku keydiiday safar yar yar ayaa soo galay insha Allah taala kulamada dambe aan kala soo qayb gali doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh guud ahaan daawadayaal barnaamijkii gaarka ah idinkaga imaanaya Jubbaland TV xaruntiisa Muqdisho halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waxa idin soo saaray isla markaana idin la socodsiinaya anigoo ah Firdawsi Xasan Cabdi waa bahdii Jubbaland TV Muqdisho oo idin la sida ay nabadgeliyo